xarunta madaxtooyada lagu qaabilay madax kala duwan oo madaxda hay'adaha qaramada midoobay ee fadhigoodii hadisaba kugu sareeyay uu hogaaminayo isku dubaridaha oo xaaladda bid'aanimo Ethiopia guudanka joogo iyo ragga dhammaan hay'adaha haysta WFP, WHO, UNFPA oo UNOCHA dhammaan hay'adaha UN agencies ka joogay sabab bayskoodii guud ahaan waxay u yimaadeen sawdogsoonada deegaankeena xaaladda kala gedisan soo maray marka isbeddelka siyaasadeed ee dhacay iyo xaaladii bini'aadanimo iyagu gacanta ay ka geysanayeen inay u kurgalaan oo dawladda iyo maamulka cusub la kulmaan kadibna ay bulshadii gaar ahaan adiyadana taageerada la siinayay la kulmaan sababtay u yimaadeen taaway deegaanka waan ognahay barakacyaal fara badan baa joogo 1,098,892 qof oo barakacyaal ayaa joogo sababta barakacana waan garan karnaa deegaankeenu inta badan saddex sabab ah mid koobaad waa dhinaca xuduudda walaaleen Oromia wadaagno iyo khilaafaadkii 3 sano u dambeeyay dhacay mid labaad waa abaaraha soo noqday deegaanka ku dhaco barakacay sababeen iyo ta saddexaad oo daadadka marar qaar dhaco meelaha webiyaasha ay ka jiraan daadad ka dhaco barakacyaal ay sababeen weeyaan sidoo kale waxaa jira barnaamijyo fara badan oo hay'adahan kala gedisanayeen inta ay taageeraan oo ay ka mid yihiin raashimada gargaarka ay ka mid yihiin PSNP program iyo kuwa badan oo nutritionka iyo nafaqada iyo waxa la xiriiro oo dhamaantood taageeraan sida UNICEF oo kale inta ay taageeraan runtii kulan aad u wanaagsan buu ahaa guud ahaan madaxweynaha iyo kaabinega ugu sharxeen hay'adahan kala gedisan xaaladdu hadda ku sugan yahay deegaanka isbeddelka siyaasadeed ee dhacay iyo ka go'naanshaha dawladda ee bulshada in wax loo qabta iyagoo bahwadaagta iskaashanaya dhamaantood runtii waa looga mahad celiyay gacanta ay ka geystaan wax u qabadka bulshada deegaanka waa looga mahad celiyay waxaana laga codsaday runtii inay gacanta ay geysanayaan siina wadaan ballaadhiyaan inta ay kari karaan bulshada la gaarsiiyo dawladdana sida dhankeeda way sameynaysaa dadaalkeedu haday tahay gargaarka degdega xilliyadii hore ma dhici jirin dawladdu inay gacanteeda iyadu inta badan raashimada iyo waxa ku geysay hadda dawladda cusub intaan joognay raashimo fara badan oo loo qaybiyo dawladda budgetkeeda laga iibiyay baa jira bulshada barakacyaalka gaar ahaan taana waa la sii xoojin doonaa haduu leeyahay iyaguna meelaha gaabku naga jireen naga caawiyaan ee dheeriga ayaa laga codsaday iyana way ballan qaadeen nations country team in Ethiopia to visit with the new president and consult with him and also have a better understanding of the challenges that the Somali region is facing at this point. And more importantly, try and agree on ways in which the United Nations can collaborate and work with the new government of Somali region.